dhageystayaal ku soo dhawaada sheeko gaaban oo aan ka diyaariyay Maryan Nuux Muuse oo ah gabadha ciyaaraha Olombikada adduunka ku matalaysa Soomaaliya. sheekadan waxaan ciwaan uga dhigay Maryan maxaa lagu maagay. waxaan ahay Maxamed Xaaji Xuseen Raage. waxa galabnimadii Sabtiga xilliga maxalliga ah ee Soomaaliya orodka 400 mitir Soomaaliya ku matashay Maryan Nuux Muuse oo ka qayb qaadanaysa ciyaaraha Olombikada Rio de Janeiro ee dalkaasi Brazil. Mrs. Muuse xitaa waxaa soo qaban waayay xayndaabka kaamirooyinka xaglaha ballaaran ee helinka MPC ee caalamiga ah iyadoo ku oroday 1 daqiiqo 10 ilbiriqsi iyo 14 dhururo taasoo aan xitaa loogu soo baxan ciyaaraha orodada hablaha dugsiyada sare marka halbeeg caalami ah la qaato. yeelkeeda Maryan waxay mudan tahay tabantaabo iyo taageero, waxay mudan tahay in hambalyo loogu qubeeyo. wax khalad ahna haba yaraatee kuma laha in natiijadu sidaa noqoto, waayo Maryan waxay maalmo badan oo ay dan kale oo u gaar ah ku raacan kartay u hurtay inay danta guud ee noo wada taala u tababarato, inay u adkaysato daryeel xumida, dacdarrida, qolayska iyo cadaadiska la socda, inay nafteeda halis u geliso doorka ay ciyaartay oo aan sahlanayn marka la eego wadciga ammaan iyo midka bulsho ee dalkeena. waxay habeenno badan u dhafartay qolays badan oo jireed iyo mid macnawi ahna ugu dhabar adeegtay sidii ay masraxa caalamiga ah uga soo muuqan lahayd, iyadoo aan u ordaynin dan iyada u gaar ah balse doonaysa inay muujiso midabada calankeena buluugle. waa sida ay ugu dambeyntiina yeeshay. waraah ay adeegsadaan dhalinyarada ayaa tiraahda lagu xanto lagu xasuustaa ka horeysa, taasoo ka dhigan in haddii aysan Maryan magaceena halkaa geyn lahayn aysan bajirtaan sabab Soomaaliya loogu soo hadal qaado halkaas. dhageysto waxaa intaa dheer inay aalaaba farxad kastaahi murugo ku laran tahay, guushu ay guuldarro la daris tahay, higsigu hawl u baahan yahay, sahalku qolays u heshay, qosolkuna uu qamuuyo la dhashay. waayo raadinta waxyaabaha aanu jecelnahay waxaa ka sokeeya oo aalaaba ku meegaaran dhibaatooyin iyo turaanturooyin ay khasab tahay inaanu ka gudubno. si aanu caqabadkaasi uga gudubno, tilaabada ugu horeysa ee naga maqan balse ay khasab tahay inaanu qaadno waa inaan noqonnaa dad garbaha isqabta marka aan dhacno, halkii aanu ka noqon lahayn dad isjilaafa ee misna qosol isu jiibiya marka uu dhulka ku dhaco kii aanu qonofka saarno. haddii ay lacala jiraan rag gabadha dhadig ahaan ku dhangadaynaya ama u ceyrsanaya, aan isweydiinay waa ay wiilka aanu guul heer qaran ah oo dhanka isboortiga ah ka dhadhaminay kadib Cabdi Bilcabdi. tan kale saqiinimada ugu weyni waa midda aad ugu hiliso qof ay markaasi ka jajaban tahay. qiyaas sida aad jeclaan lahayd haddii lagu geliyo kabaha Maryan Nuux Muuse, maxaad dareemi lahayd haddii aad u safarto dalka fog ee aad ku dhex orodo kumanaan qof oo aan adiga taageerayaal ku ahayn, kulana dal iyo dir ahayn, ee aad la tartanto 10 kale oo aan adiga tabantaabo ku haynin kaana turqroon, ee deeto markii orodkii lagaaga tagay ay misna tolkaagii kugu wiirsadeen. qiyaas xanuunkaas niyadeed, qiyaas sida ay dilaa u yihiin erayada yaryar ee aad sida fudud iskaga leedahay. ma jeclaan lahayd in adiga gartaa cadaawo lagu noqo, mise garwaaqsi ayaa door bidi lahayd? ma in lagu caayo ayaad rabi lahayd mise in lagu cudur daaro? ogow qofku waa adigoo kale. qoraagii filosoofka ah ee Mark Twain ayaa laga qoray naxariistu waa luuqad uu dhagoolku xitaa maqli karo, indhoolkuna arki karo. maxaa kuu diidaya inaad erayo dhiirigelin ah ku taageerto qofkii kuu dadaalay nocod baa canshuur kaaga rabta haddaad waxsan sheegto ee aad weliba khayr ku hesho? dhagaysto ogow, dhaliishu madaxuma waase haddii ay tahay mid gar ah isla markaana wax dhisaysa. fashilka Soomaalida ka qabsada fagaarayaasha isboorti ee caalamka iyo kuwa goboleed ama xitaa dhan kasta oo nolosha ahi ma aha kuwa ay eedeeda leeyihiin oo qura dadka qaybta ku jira, dadka noo tartamaya, balse waa eed aynu wada leenahay. kasoo bilow midka wax maamulaya ilaa midka erayada niyad waraanka ah la taagan een isagoon talo keenin, aan misna tala raacda ahayn. aan mar kale naqtiimo oo aan ku celiyo, dhaliishu aad ma aha waase inay tahay mid wax dhisaysa. qiyaas haddii uu maamulku si hufan wax u soo xulo oo uu nintooxsi iyo musuq iska daayo, haddii uu la yimaado istiraatiijiyad iyo xeelad ka turjumaysa isla markaana waafaqaysa halka aynu higsaneen, halka ay sartu ka quruntay, soo uma jeedin marka aad aragtay aminta ay inantu ku oroday oo ah 1 daqiiqo 10 ilbiriqsi iyo 14 dhurro iyo orodka ay ka qayb qaadanaysa oo ah 400 mitir. ka waran farqiga xawaarahaas. dabcan waa orod fagax ah min bilow ilaa dhammaad. maxaa keenaya
inaanu markasta ku dhacno khaladka istiraatiijiga ah iyo midka xeelade aan ku xusuusiyo rikoorka u yaala orodka 400 mitir waa 43 ilbirqsi iyo 3 dhurbo oo qura waa marka la eego rikoorka caalamiga ah yaa eedaas iskale ma gabadha noo dadaashay ee Maryan Nuux mise guddiga Olombikada Soomaaliyeed iyo ciddii iyada u soo xushay ma dhici kartaase inaanu iyaga laftooda ugu cudur daari karno xaaladda adag ee uu dalku ku jiro markii dhinaca ammaanka iyo dhanka bulshada laga eego iyo in hay'adda Olombikadu ay tahay hay'adda qura ee calanka siday waayihii uu dalku dawlad la'aanta ahaa mise dhici kartaa in marka aanu cudur daarno ay iyaguna naf isgeliyaan oo ay khaladkooda saxaan oo ay gobolada dalka ka doonaan dad dalka matali kara oo leh hibo orod iyo farsamada tartamada ay ka qayb galayaan iyagoo la imanaya diyaarintii iyo jiscinkii loo baahnaa tusaale ahaan orodka waxa aalaaba ku wanaagsan dadka ku nool dhulka sare ee oksijiinku ku yar yahay Soomaaliya dhulka oogadiisu sareyso kuma badna balse misna way leedahay sida gobolka Sanaag oo kale waanu jecelnahay aqliyad ahaanna waanu u janjeernaa inaanu si fudud wax iskaga dhalino inagoon xitaa tafaasiil sida u ridan ka haynin sida ay u shaqeeyaan iyo dadaalka ay u baahan yihiin waxaas aanu cambaaraynaa laakiin isma qaadanayaan inaanu guul jecelnahay garab istaageenuna abriya soo kama dhigna sidii nin galay ku beeraya gawaan laami ah sidee u guulaysan karaa qof aynaan taageeraba u quur aanu isweydiinno dhageysta maxaa naga khaldan maxaa iga khaldan maxaa ka khaldan adiga sidaas u sixi karnaa annagoo bulsho ah oo aragti wadareed sidan halkii aynu aad iyo ilaaq aan bidaal lahayn isula taagnaan lahayn adduun iyo aakhirana ku seegi lahayn hal la bedelo aqliyadaas si ay ciddu guul ugu caweyso guul Soomaali Maxamed Xaaji Xuseen Raage Gool FM Gothenburg Sweden روحك وحجا هكون نقون عدوي عرفتي ذي ولا قلبي عيني هنطولي ايدي انا يا راكيو عيني هنطولي ايدي انا يا راكيو روحك وحجا هكون نقون عدوي عقلي وحكراشيو عيناه نابده عقلي وحكراشيو عيناه نابده عجزا عكيرانتيو ولا لغو عدي كرو وذكركي سواينيو قرت عادك نقون
إيدي أنا يا ربي روحك وحقا هكون نقون عدوي عربتي ري ولا قلبي iyo wax barashiyo carurnimo wax ka lumay ilmi iyo wax barashiyo carurnimo wax ka lumay adun cashirka tiifiyo asidii laha wadan ama caalib way noqon hawaran cariigsiga midad ku garalaysiyo adan cashirka tiirtiyo cabsidii laha wadan ama caalim way noqon hawaran cariigsiga cada midad ku garalaysiyo روحك وحقا هكون نقون عدوي عربتي ري ولا قلبي عيانك طولي ايدي انا يا ربيو عيانك طولي ايدي انا يا ربيو روحك وحقا